iyo si korayta saameynta ku dhalatay dhibaatada sababtay abaarta sanadkan dalka Soomaaliya oo khaasatan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya taasoo saameeyay dadka iyo dunyada iyo waliba saameyntaasi aan si dheer isbedelka kooyay dhinacyada nolosha dadka iyo maciishada meelanya waliba yata kaamka awro oo kumid ah kaamka Bogtaala ee degmada Bardaal waliba maalinka dambeeyay qulqulaha ee barakacyaal cusub oo markaas ku barakacay deegaanada hooskoyo degmada Bardaal ee gobolka Baay waliba iyo in iska jarana ciyaal waayeelo dad naafe waliba maraan kool galay xaaladda nololeed ee dadka waliba maraan kool galay xaaladda qoysaska saameeyay abaarta oo haysan biyo baada ee qulqulaha degmada Bardaal waraysi la qaaday qaar kamid ah Bogtaala ka nool kaamka Koranba inta ku Bogtaale Awro ku Bogtaale Koranba xaaladda habdani abaaraha nagali biyo baad bahawaani ilaahay hoob oo ilaahay roob biyo baahangna baadan baahangna walunane baahnayna male marka ma asaas hay'adaha samafalka iyo dadka bulshada ma ka asaas qaadama abaara deegaamada saameyn ee dadka usoo Bogtaale dadka Awro ku Bogtaale ee dadka la hadaya ayabdan horuseena sanadii deegaanka iskariya la raaymi la ku gooya ata Awro biyo baahangna baadan baahangna ilaahay hoob abaarta ilaahay sheenay muslimku dhon ahayte ilaahay dawladda biyada ilaahay ama la wala baahangna hoob la riyaa nani raadi falaay okay Koranba xaalad deegaanka iskari abaaro saameey abaara saameeytay ama dhowna hada abaartay ma hayna hilib badan abaarka dhiidi ilaahay hoo dadka tabaahi roog oo ngaroog ilaahay hoo bariyada ku kooni wal bi baad in wala helan intisan kootan haye dibdijin ya la soo soobi ma ay man baa inta marka ma astaas hay'adaha samafalka bulshada horta koobta ilaahay ama la bi baahan tankal ilaahay hoo bakraalna xarun caafimaadna aan baahana caafimaad jirina aadna ila jirta boosa wadana ilaahay ma la wal mas'an ku hayo wadana xaaladan kaamka may roogna Awro roogna dad badan macnaa may in shaqada beerogi oo deganayeen ha ku abaarsadeen oo macnaa waro ha gureen bi baahan raashin baahan gargaarka degdega macnaa may in shaqada hay'adaha samafalka ku codsada hay'adaha roogan hay'adaha hatta kaamka aan ka dambeeyay ku biyahayti marka ma in ka mahadnagaanaha boqolkiiba aan ka mahadnagaana dad ilaahay boqolkiiba macnaa may in shaqada dadka oo walan gobad iidan ka mahadnagahay si zaaidan ka mahadnagahay marka hoo bilaayir hay'ada kale samafalka may kale ku sii codsadaanaha in oo saas oo kale indadaalano dadka masaakiinta ah hodan yarka ah xaq ahayno baaha guurday wadanka degan in walan gobadan sida hay'ada koobiyahan ana may in shaqada deeyda siyad iidan dadaalay dadka deegaanka deegaanka oo macnaa degmada ka dhisan iidan ka dadaalay iyadoo walanka biiday juhdi giriday dad masaakiin adan yar hay walka siidiyo hay'ada kale inay ka deeydan waan walna gobadan ku fadsadaan boos hindhoole ya kaamka Awro meelna roogan tuula Bardaal dhiniyajiga ka yahay ku heen idan dhibaataysan rafaasiin mana lankin doojiga oo bageek meel mar waysan lankin doojiga bay baroorahay dadku oo boostay dadkii noloda macnaa may baa inuu geeka gargaar wingan baahanyin heedo samafalka ila may baa iyo ganacsatada arday adduunyada dibada wali roogan iyo kaalmeen aan ku baahanyi jidteelu ku tabahay booso hindhoolo dogaalo waayelo rafaasiin waan idan ka farxasana dadka dhiniya ku kooyan rafaasiin awlaadiyo iyo iska rafaasiin waliyarkii uu gamna abaartay ay si maraytan waliyarkii uu nafta shaay anta langa kari bi inta la kasiyay wala mbuule la tuuga anta langa kari hay dhibaatadu saasu jeesin idoo joo ku rooran alaabtii ku taban walba miska hayan biyo aan baahanyin irsaagdaan baahanyin wal kastiin baahanyin galula aan baahanyin alaab wal karsaan magaban isku fadahayan dhibaataysiin haduu wala hanga garaami anta langa weelay warka kaasu reejisadii oo nahay macnaa walanka qowda fadhi oo gargaar degdeg ah la karaadiyahay kulli aragahay tan isim maysin sheego kaamera wala dhoom isim ku fiirsaytan saasa halka iimado
Gudoomiyaha kaamka Abuuro Nasro Macalin Abshir iyo ku warbiyay xaaladda dadka bogtaale ee ziyadaha ee degmada Bardaal ee gobolka Baay. Magacayna Nasro Macalin Abshir leere kaamka Abuuro roogna kaamka Abuuro gudoomiyaashii aha dad badan oo meebaneel jaraacul degnay iyo dad hadahani barakacay oo tuuliyaha ku barakacay oo abaaro saameeyay hoolasho dhamaadeen meeba fadaan dadkaasay in lahayn dhawaay waldaninsi nin caawi meel raasada heeda hadinka dambeeyay oo caawidi koobiya hayti eedeedan mahadsantiyan si sharaf leh nin dhawaaytii si sharaf leh walninsiidi meeba ku odsadaan heedo kaleen saas oo kalantiyon nin booqda oo dadkii hadaha barakacay yoon walninka ka sameeyay guriyaal aan baahin guriyasiisin aragahay tago haan wal iyaal iyo bilan hada hergal kuran ma kuleel waay markii guriyaalna ninka sameey oo biigilin nin sameey meel raayis eedeed gargaar caafimaad ninka fidi ya fadaan dadka deegaamada ka barakacay wal xasuusta deegaamada ka barakacay deegaan Abuuro leero ku mid deegaan meel raayis iskari leero ku mid bay guduud meel leero ku mid hada afarta koon magaalada baa ku barakacay deegaamadaas deegaamadaas ku marka عاد كام كمدية دبجين قابل وصوبي والله حد إلى حد جرجر عفما دتك حتى هدق هلن ملأول أو إنه شخصي أحانتنا هكسير دواني بيدامس يون حيتي أو معمول كهجاي معمول كونفرقل بدأي إذا كم هنقانون تروجن نسمين بيدامين نشانن لكن جرجر عفما تكل أو زايد هذا مهال marka ana may codsaasa macdama bi isin helan raashin iyo wal kala oo dadka ka may boodsadaan raashin aan baahana dhismo aan baahana goobo caafimaad aan baahana may boo meel hadii dadka badan iska kooyan ogsunta udurkana hasii badade say dadku iyo nahayti udurka linshal badbaadi may ba fadaan goobo caafimaad ninka dhax sameey kaamamki may ba fadaan raashinana ninshaana ada lamboli karaan sheenta hanay darsadeeda sama falka in may ba fadaan hana booqdan wali karaan sheenta hanay dar Abdullahi Maxamed Abdullahi Fani telefishinka iyo raadiyaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Bardaal ee gobolka Baay.